madal xafladeed oo ballaaran oo ku abtirsanaysa bahda caafimaadka oo ay ku qalin jabinayeen 4 arday oo ka tirsan ardayda jaamacadda Camuud oo iyagu dhameystay master programka qaybta labaad ee digriga gaar ahaan family medicine-ka ayaa waxa ay kulmisay marti sharaf aad u tiro badan waalidiin dhakhaatiir iyo macallimiinta jaamacadda Camuud ee iyagu ardaydaasi wax soo baray gudoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Saleebaan Axmed Guuleed ayaa waxa lagu qabtay hoolka hotelka Ray intii xafladaasi ay socotay ayaa goobta waxa hadallo kala duwan ka jeediyay iyo mid kamid ah ardayda maanta qalin jabinaysay oo isagu sheegay sidoo kale macallimiintii ardaydaasi wax soo baray oo iskugu jiray ajaanib iyo Soomaaliba ayaa iyaguna goobtaasi ka hadlay waxa ayna sheegeen marka dhakhaatiirtan maanta family medicine marka la leeyahay ee ay dhinac walba qoyskii ka daweynayaan waa sheekhiyo. I am so proud to be here today, to be with you, and I will always be of your support, helping you wherever you are, with my smart nurses, midwives, and we are always trying to help. If you are the role models, we can make Al Hayat Hospital the best of the best, because who are the people working in Al Hayat Hospital? waa dhakhaatiir loo carbiyay oo loo tababaray in ay maanta ka jawaabi karaan baahida caafimaad ee mahadalkeena ka jirta ee gobolkeena ka jirta waa dhakhaatiir u diyaara wixii caafimaad ee yimaada inay maanta qaban karaan waa dhakhaatiir ma aha maanta wax caafimaadka kamid oo qura maanta wax ka qabanaya laakiin waxay ka qabanayaan wax ka cudur kasta iyo qalliin kasta oo maanta gunti iyo gabagabadiina Professor Saleebaan Axmed Guuleed gudoomiyaha jaamacadda Camuud ayaa isagu sida tan sheegay Camuud University iyo Somdef iyo isbitaalka midna waxba kama helaan annaga maal gelino lacag gelinay ka qoliyan maxaa la yiraahdaa family medicine waxay kamid yihiin intii aan barnaamij la soo saariyay barnaamijyada caafimaad ugu fiican maanta oo dhakhtar well rounded dhowr area oo waaweyn ku takhasusay intaba ka kafin kara as a matter of fact waxa ka baxay way yar yihiin wali laakiin intii already ay exposure noqdeen ay dad la shaqeeyeen intiiba way ogaadeen inuu yahay barnaamij wax ku oola isku soo wada duubo jaamacadda ayaa 15 sano ugu dambeysay waxa ay soo saaraysay midho ay mahadisay jamhuuriyadda iyo dadka guudaan afka Soomaaliga ku hadla oo aqoon cilmi aad u tiro badan hiwan oo iyagu geyga Soomaalida si weyn looga waa Hoori Axmed Hoori oo Cable TV magaalada Buurama.